waxaa ciwaan looga dhigay qoomamo waxba ma tarayso waan ku cibro qaadasho. waxaan fadhiyaa maqaayad aan shaah ka dalbaday aniga oo xogaa ka hor ka imid shaqada. goobtan aan soo fadhiistay waa meel aan inta badan u nasasho imaado. markii aan cabaar fadhiyay goobtii ayaa waxa isoo wacay telefoon ama number aan garanaynin oo aan ku jirin kuwa ii save garaysan. isla waqti yar gudaheeda ayuu isoo wacay marar badan oo isxigxiga. anigu sideedaba dhaqan uma lihi in aan qabto number telefoonkiisu aanu ii save garaysnayn. waxayna iga noqotay dabeecad joogto ah. numberkii markii uu igu daalay ayaa haddana waxaa la iga soo wacay numberka saaxiibkay. waxaan isiri waa qofkaad ka qaban weyday oo ka soo wacaya numberka saaxiibka ee ha ku ceeboobin dhagna jalaq uma aanan siinin. oo sheekadii iyo shaahii ayaan iska sii watay. shaah labaadna waan dalbaday. cabaar markii aan fadhiyay haddana sidii ayuu iigu soo daalay numberka saaxiibkay. waxaana isla sidii oo kale si la mid ah ii soo wacay numberka walaalkay. waa Soomaaliya dhaqankeeda. waxaan isiri haddana ma dhinaca walaalka ayuu ka soo wareegay qofka aad telefoonka ka qaban weyday. in badan oo aan dhamaantood dhag aanan u dhigin ayaa waxaa dhacday in saaxiibkay oo aan shaqo wadaagnahay goobtii aan joogay iigu yaqaanayna oo mar walba oo aan fariisan jiray halka ogaal u lahaa inuu isaga orday iigu soo galay maqaayadda albaabkeeda. waxuuna igu yiri markii ay ishaydu qabatay saaxiibkay waxaa wajigiisa ka muuqday argagax iyo warwar aad u daran. ilin ayaana ka socotay indhihiisa. waxa uuna si lama filaan ah iyo cod aan anigu jeclaysan oo iigu sheegay in hooyaday gaari jiray kaaga daranay intii ay nafta ku jirtay hooyaday ay dalbatay inay i aragto aniga maadaama aan ahaa yaraanka reerka. kadib markii uu telefoonka dhulka ku dhacay uu kala jabay nasiib darro waatan i haysatee waxaa isoo wacay wixii isoo wacay oo dhan waxay ila rabeen inaan imaado isbitaalka inta hooyo dhaawaca ahayd laakiin ma suuro gelin oo inta uusan isoo gaarin saaxiibkay ay hooyaday naftu daysay ama ay geeriyootay. ayaan darada ugu weyn ee igu habsatay ayaa ahayd hal mar oo aan telefoonka qaban waayay oo kaliya inay iseejisay inaan hooyaday oo nool la kulmin. balse ma dhicin inaan telefoonka qabto. waxba iima tarayso inaan ka qoomameeyo wixii aan sameeyay laakiin waa ku cibro qaadasho ayaa lagu soo gabagabeeyay. waxa ay qisadan ku dhacday wiil saaxiibkay ah ayuu qoraaga sheekadu leeyahay. waa Yaasiin Xuseen Ismaaciil qofka sheekadan qoray. waxaanu ka soo qaadanay Mahad Sheekh Cumar Maxamed qofka soo gal mareegta